السلام عليكم مسيح الدجال. هذا واحد موقال كينا وعقسنينا عدة وياه المسيح الدجال. هذا واحد أقول أن العالم كسود جيين إنه مسيح الدجال هاي ثامري. هذا مقعد ثامري وحي علماء كفسرون إرق ثام ومقع إنه نوحا أساسي مقالة أفكح اللي قالوا هذي وحلو يقاني أفكح اللي قالوا حلو يقاني مقالة الثمرة معناه هو مقالة الثمرة معناه هو مقالة ثامرنا وننكي مقالة ثام ولا شيء مقالة ولا بربري أو دول خلال شرعي ninkan halkaas ayaa laga soo badbaadiyay markii uu socday magaalada burburkeeda sidaasna ayaa loogu magac daray as-samraa waxaana uu la kulmay aakhirkii nabi muuse waxayna sheegeen aqoon-yahanada arrinta tibaaxaya inay aayado badan u daliishadeen waxaana cadaynahaasi ugu tahay mid weyn kow waa markii uu lufcaasha soo saaray fircoon waxaa soo degay jibriil oo damacsan halaaga fircoon xeel dheer waxaana waakay faraska jibriil oo hal lug oo adinka ku dhigayaba ay caddaanayso goobta uu ku istaagayo iyadoo meeshaas ahlama degaan ay ahayd waxaana waakay raadkii jibriil oo noolaanaya halkaasna waxaa kasoo dhiranayay in cadayntaas koowaad oo in aanay dadku aanay kala ahayn arrinkaas jibriil laakiin isagu wuxuu sixirkiisa u adeegsanayay marka uu masiixu dajaal soo baxana waxay xadiisyadu dhigayaan inuu adduunka oo dhan joogsan doono ilaa laga reebo maka iyo madiina mooyaane labadaasna malaga ayaa seefta hortaagan oo ka ilaalinaya isagoo kaliya ayaa arkayana malaa'igtaas cadayntan labaad waxay xadiisyadu saxiixeen inuu masiixu dajaal uu leeyahay awoodo badan oo ka xeel dheer tan dadka markaas uu soo baxana waxaa awoodaya inuu qof dilo soo nooleeyana taas oo arrintaa ahna ilaa ay u sakhiray ilaahay ayaa u sakhiray laakiin dad badan ayaan rumaysanayn oo raacaya diintada islaamkana halkaa ku waayaya waxa uu sidoo kale dalbanaya roobka waana loo sakhiraya sidaas oo aanay bashar kale fulin karin waxaana uu damacsan yahay ninkani inuu sameeyo looda caadiga dibi kaasoo ciyaaya waana arrin oo alla u sakhiray allahna naga badbaadiyo wasalaamu calaykum.